السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك وحيران كنالك برادو بلشة سو دوادا مقالكنا تدوبادكم waxaan ku eegaynaa sida xirfadda dhageysiga ama listening skills-ka uga baran karto website-ka British Council waxaan u qaybin doonaa muuqaalka saddex qaybood maadaama uu yara dheer yahay qaybta koowaad waxaan ku eegaynaa sida ugu diyaar garoobi karto casharka ama waa preparation section qaybta labaad waxaan ku eegaynaa ama ku sharaxaynaa casharka naftarkiisa ama waa lesson section qaybta saddexaad oo ah qaybta u dhameysana waxaan ka wada shaqeyn doonaa weydiimaha ka yimid casharka ama waa task section saddexda qayboodba waxaan soo gelin doonaa toddobaadkan gudihiisa haddii alle idmo ila socod wanaagsan dhammaan asxaabteena saaxiibayaal muuqaalkani waa qaybtii labaad ee sida xirfadda dhageysiga ama listening skills-ka uga baran karto webka British Council oo ku siinaya free materials fara badan qaybta koowaad waxay ahayd preparation section inagoo soo aragnay dhammaan ereyada muhiimka u ah inaad fahanto casharka waxaan kugula talinayaa qaybtaas inaad soo daawatid isla kanaalka ayayna ku jirtaa qaybtan waxaan ku eegi doonaa sharaxaadda casharka kadibna qaybta saddexaad waxaan ku eegi doonaa task section okay qaybtaan aynu iska xirno marka haddii aad fahmi weydo oodiyaha inaad transcriptiga furatid markaa transcriptiga iyo oodiyaha isku wadid waa haddii aad oodiyaha fahmi weydo haddaa oodiyaha fahantidna falilaahi alxamdu markaas uma baahnid markaa taskiga hore kaga boodaysaa marka labaad inaad u timaadid transcriptiga aad aragtid maxaa kuu saxan maxaa kaa khaldan inaad aragtid kadibna aad samaysid taskiga marka inagu sidaan idin sheegay hadda qaybtan transcriptiga ayaynu maaragtay fiirineynaa maadaama ayna waqti badan u helayn aynan isku wada heli karin inaanu labadaba fiirino qaybtan transcriptiga marka saa u jeedaan waa conversationka labada qof dhex maraya oo toos ah oo oodiyaha baa halkaan maaragtay lagu soo gudbiyey transcriptiga okay so let's start aan bilowno number 1 waxaa hadlaya presenter ama interviewer waa qofka markaa qofka su'aalaha weydiinaya qofkan baa bilaabay wuxuu leeyahay so today's expert teacher is Gabriela khabiirka macalinka maanta inala jooga waa Gabriela oo macalin ah wuxuu macalin ka yahay meesha loo yaqaan Leeds okay Gabriela hi and thanks for joining us marka uu salaamay wuxuu leeyahay waad ku mahadsan tahay inaad nagu soo biirtay maanta Gabriela wuxuu ku warceliyay thanks for having me waad ku mahadsan tihiin inaan idinla joogo okay presenter marka waa hadalka qaatay wuxuu leeyahay so I have to confess today's topic is something I am really bad at wuxuu leeyahay confess ereygaas u jeedaan haday admit wala macnaaha oo ah wuxuu leeyahay waa inaan qirtaa in mawduuca maanta uu yahay waxaanan anigu ku fiicnayn shakhsi ahaan wuxuu yahay waxa uusan ku fiicnayn presenter waa listening okay most people say speaking is the most stressful part of learning a new language wuxuu leeyahay dadka inta ugu badan waxay yiraahdaan speaking ama ku hadalku waa qaybta ugu adag ee barashada luqad cusub but for me with my B1 German speaking isn't so bad wuxuu leeyahay aniga laakiin markaan baranayo luqadda Jarmalka ku hadalku muusan ahayn mid xun at least I am in control of it ugu yaraan waxaan ahaa qof xakameyn karaya but listening laakiin dhageysigu wow markaa waa interjection iskuna ma lahan macno sax ah af Soomaali tusaale ahaan waxaa tusaale u noqon karaya wegar oo kale waa erey maaragtay dareen muujiyo oo kale waa erey dareen muujinaya laakiin macno sax ah aan lahayn laakiin dareenka uu muujinayo la fahmi karayo okay people speak so fast and it's like my brain just shuts down wuxuu leeyahay dadku waxay ahaayeen kuwa u hadlaya si degdeg ah waxayna u muuqatay in maskaxdaydu tusaale ahaan ay dansan tahay oo kale wuxuu la jeedaa waxaan fahmi kari waaye sida ay dadku u hadlayaan iyo qaabka degdega ah okay wuxuu leeyahay I am just really strange and bad at listening waxa ahaa mid ku xun qariibna ku ah qaybta dhageysiga tell me sheeg honestly I can take it wuxuu leeyahay marka wuxuu su'aal weydiinayaa macalinkii markaas uu barnaamijka ku wareysanay wuxuu leeyahay sheeg si daacadnimo ay ugu sheeg waxaan inuu aniga ugu kooban yahay in dadku ila wadaagaan oo kale marka macalinka jawaabay Gabriela wuxuu leeyahay no
you are not strange maya ma tihid waxaasi ma aha wax kugu kooban in fact xaqiiqadii it's really common waa wax guud oo dadku wada wadaagaan waad ogtahay in exams most people do pretty well in speaking compared with listening wuxuu leeyahay waxaad ogtahay inta badan imtixaanada dadku way ku fiican yihiin speakingka marka la barbar dhigo dhageysiga of course exams are different situation from a real life because in an exam you can't ask for something to be repeated or explained okay wuxuu leeyahay inta badan imtixaanadu way ka duwan yihiin xaaladda nolosha caadiga ah sababtoo ah imtixaanka ma haysatid fursad aad dhahdo qofka iigu soo celi ama sharax you usually have just one or maybe two opportunities to listen to the dialogue and then it's gone okay wuxuu leeyahay waxa haysataa hal ama laba fursadood inaad dhegeysato kadibna dialogue waa dhamaadayba ama conversationka markaas aad dhegeysanayso wuu dhamaaday waa sida caanka inta badan waxa la siiyaa qofka twice baa la siiyaa laba jeer inuu dhegeysto haddii laba jeer aad dhegeysatid fursad saddexaad ma haysatid okay presenter waa marka ku laabto wuxuu leeyahay right but in real life I feel stupid always saying sorry can you repeat that please okay wuxuu leeyahay inta badan waxaan dareemaa inaan ka xumahay markaan qof ku iraahdo fadlan iigu soo celi kelmadaas especially gaar ahaan if I still don't understand even when they repeat it and people out there listening I hope you don't do this quite often the person just repeats what they said equally as fast and I'm still lost wuxuu leeyahay horta marka koowaad qofka inaan iraahdo iigu soo celi ma ahan wax aan raali ku ahay waa ka xumahay haddii xataa qofkii iigu soo celiya buu leeyahay wuxuu u hadlayaa siduu markii hore u hadlayay si la mid ah oo weli ma aan fahmayo okay haddii xataa qofkii ku soo celiya dabcan halkan tusaale qof baa kelmad yiri kelmadii uu yiri baa waxa tiri iigu soo celi wuu ku soo celiyay weli ma aadan fahmin booskaas oo kale isagu jooga okay Gabriela marka qaatay wuxuu leeyahay they do don't they way sameeyaan miyaysan sameyn macnaha tan dambe question ma aha laakiin waa emphasize wixii hore buu adkeynaya xaaladda caadiga dadku macnaha waxaas way ka sameeyeen buu rabaa inuu yiraahdo wuxuu leeyahay marka you've got two strategies xaaladda noocaas haday ku qabsato waxaad haysataa laba khidadood okay one is to pretend to understand mid kamid ah waa inaad nafsadaada ka soo qaado inaad fahantay and get out of the conversation as fast as you can kadibna aad wada halka u dhamaysaan sida ugu dhaqsaha badan okay qaybtaas waa istaraatiijiyada koowaad strategy number 1 okay marka presenter wuxuu leeyahay yep sounds familiar taas waxay u muuqataa mid maangal ah oo inta badan caan ah okay Gabriela but obviously that's not going to help if it's conversation with high stakes wuxuu leeyahay marka xaqiiqadii taasi ma aha mid ku caawinaysa haddii wada hadalka qofka la leedahay ama wada hadalkiinu yahay high stakes ama wada hadal meeqaabkiisu uu sareeyo okay high stakes waxaan ku soo aragnay waa important point oo kale waxaan ku soo aragnay qaybta preparationka saan idin sheegay preparationka waxa inta badan ugu siinaya wordska ku jira dialogue si aad u sibratid macnahooda okay it might have important consequences waxa laga yaabaa inay leedahay natiijooyin muhiim ah inay ka soo baxayaan wada hadalkaas I mean waxaan ula jeedaa if you are just chatting with a stranger at the bus stop it doesn't matter tusaale ahaan haddii qof aad maaragtay la fadhido qaybta baska uu istaago qofkan aad isku cusub tihiin wax dhib ah ma lahan wada hadalka dhex maraya ee muhiim ah qofka waa isku cusub tihiin wax muhiim ah ka wada hadlimaysan but imagine you are at a government office or a bank ka soo qaad buu leeyahay waxa laga yaabaa inaad joogto xafiis dawladeed ama bankiga trying to find out what paperwork you need to get your ID wuxuu leeyahay waxaad rabtaa inaad dalbatid nooca documenti u baahan tahay si aad u heshid ID-gaaga xafiiska dawladda ayaana joogtaa or a bank account ama waxaad rabtaa inaad furato account adigu aad leedahay ama waxaad rabtaa inaad furato account adigu aad leedahay what you can do then kadib maxaa samaynaysaa
Okay, marka presenter wuxuu leeyahay I hope you've got the answer Gabriella because I am coming out in a cold sweat just thinking about either of those situations. Okay, wuxuu leeyahay xaaladan oo kale waa su'aal aad maskaxda ku haysid oo maankaaga ka guuxaysay jawaabteedii inuu sheego qofkaad maaragtay rabto inaad weydiiso oo kale. Gabriella marka wuxuu leeyahay the other strategy is to summarize what they say. qofkii wuxuu yidhi haddaan fahmin tan koowaad waad koobi kartaa summarize baa ku samayn kartaa waa soo koobi kartaa. Okay, presenter wuxuu leeyahay marka but how can you do that if you didn't understand what they say? seebaad laakiin ku samaynaysaa taas haddii aadan fahmin wixii qofkaasi uu yidhi. Okay, Gabriella marka dib ugu laabanaya wuxuu leeyahay well you only started the summary so you might say in German in your case okay so the first thing I have to do is and make it a question or for example and which office is that again break it down into smaller questions and other person will naturally start answering them that the way you are controlling the conversation a bit more. wuxuu rabaa qaybtan wuxuu sharaxayaa istiraatiijiyadda labaad oo ah inaad wixii soo koobtid. wuxuu sharaxay qaabka u soo kooban karto. wuxuu leeyahay qofkii waxa dhehaysaa wixii waxa weeye wixii waxa uu kala qaadaysaa dhowr qaybood. tusaale ahaan kelmaddu hadday ka kooban tahay 4 qaybood 4 qaybood baa u kala qaadaysaa. smaller questions qayb walba ma baa su'aal ka weydiinaysaa. su'aal ahaan xafiiskaas kee buu ahaa which office is that again break it down into smaller questions oo kala qaad su'aalo yar yar. marka wixii maadaama muhiim yahay aadna rabto si 100% inaad u fahanto adiga focus ka saari maysid wixii inaad fahantay laakiin focuska waxa saaraysaa saa uga heli lahayd qofkii jawaab saa uga heli lahayd. marka qayb su'aalo yar yar baa xataa si kala jijibinaysaa maadaama mawduucu muhiim ku yahay. okay, qaybtaana saas buu ku sharaxay istiraatiijiyadda labaad. okay, presenter wuxuu leeyahay I get you waan ku fahmay dabcan. marka qaybtaas waa kaas qaybta transcriptiga intaas ugu muhiimsan. so let's go. okay, waxaan rajeynayaa inaad fahanteen qaybta transcriptiga. marka dabcan qaybtan waynu ka gudbaynaa waxaynu u gudbaynaa task 1 ama shaqada koowaad. shaqada koowaad waxayna leeyihiin